munaasabad kooban oo ka qabsoontay xarunta dawladda hoose ee degmada Togwa Jaale isla markaana ay xilalka kula kala wareegayeen maareeyihii hore ee wakaalada biyaha degmada Togwa Jaale haddana loo bedelay degmada Arabsiyo iyo maareeyihii hore ee degmada Arabsiyo loo soo bedelay degmada Togwa Jaale ayaa ka qabsoontay xarunta dawladda hoose ee degmada Togwa Jaale waxa xilalkiisa rasmi ah uu kala wareejiyay saraakiil ka socday wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Jamhuuriyadda Somaliland gudoomiyaha degmada Togwa Jaale iyo suduwaha wasaaradda horumarinta biyaha kheyraadka ee gobolka Gabiley man mas'uuliyiinta halka ka hadashay ayaa waxa kamid ah hadaladoodii daaran badan kulli oran mayno diwaal labaduba waxay loo bedelay wakaaladaha Ibrahim darasiyo joogay wixii arabsiyo uga qabsoomay iyo maxamuud intii uu joogay wajaale wuxuu uga qabsoomay anna waa la joogay laakiin iyaga uga tagayayo kulli wax qabad uga qabsoomay laakiin labaduba waxay noo helay meesha ay Ibrahim yihiin wakaaladana maanta yihiin mid kastana waxaan ku rajaynaynaa muxtarna aad baan ugu rajaynaynaa inuu halkay maanta joogto dardar cusub la iman doono wax badan ka bedeli doono way soo martay dadka reer wajaale aynu la joognaa xafladda aynu martida ugu nahayna way isgaranayaan muxtar oo ugu dacaynaa in halkii uu maalintii naga tagay waxa ugu kordhay oo la laabi doono haddii ay hoos uga dhacaan oo kordhin doono markaa kulay duca iyo dardaaran ayay ka tahay aniga hadalkaygu waa sunnaha dawladnimada ka mid tahay in la isku bedbedelo xafiisyada taasi oo macnaheedu yahay in xafiiskii haddii in yaroo caajisa laga dareemo ama la yiraahdo ciddaa way kaga wanaagsan tahay in si waxqabadka ummadda loo qabanaya uu u kordho in xafiisyada la isweydaariyo oo dadka had iyo jeer kolba dhinac loo kaxeeyo sunnaha dawladnimada ayay ka mid tahay wax dhibaato oo kale oo jira ma jiraan runtii midna wuxuu ka soo labada maareeyo midna wajaalu ka bilaabay midna wuxuu ka bilaabay arab waxaan halkan uga jeedinayaa oo kaliya war wakaaladaha gacanta ku haysan waxa weeyaan biyuhuna waa noloshuna in la ilaaliyo waxa ku ilaalinaysaan in maamulkii ka dhigtaan mid oo sustainable ama waara oo maamulkii salka u dhigtaan runtii waxaanu xilka ka wareejinaynaa maxamuud daahir taana waynu u dhiiban horta biyuhu sideeda waa nolosha haddii meesha biyo laga waayo wax kasta caafimaadna ka socon maayo waxbarasho ka socon mayso sanitationka oo hore loo mariyo ka socon mayso muhiimadda koowaad weeyaan biyuhu waa nolosha qof kastaana intuu halka loo dhiibo marka taytalka aad hayso ee lagu dhiibo sida duruufaha u wajahda ee wax u hormarisaa waa wax magacaaga ku suntanaan ya maareeyaha deemka la wareegayo sanadii laga soo bedelay Arabsiyo labadooduba waxa weeyaan waan u ducaynayaa inuu Ilaahay u asro xilka mid walba loo idmaday runtii waxa weeyaan waa meel halbowle ah waa noloshii weeyi mid walba halkii uu ka shaqeynayay way argamadeedina waa wataa tiro guriga ayaa lagu yimid shaqo guri oo biyuhu ku talaalayeen shaqo boqol bariga ay yihiin taasi ayaa ka baqaaday waxqabad sigiib balaaneed baan galay maanta alxamdulillah waxaan gaarsiiyey kunguri waxa kaloo soo kordhiyay wax soo saar waxaan ugu mid hal jiil oo magaalada walaaliyo mar haddii jiyaala shidaal iyo isticmaal ee kharash aanu bal ka faa'iideeyno cadceeda oo aanu keenno solar taasi oo ku kacaysa ilaa $100 lacag gaaraysa taadna deyn ayaa loo qaadnay deynka loo qaadnay kulay waxna waa baxay waxna arkay inaan haddana marka galbeedka sahan ka qaadno sida suurtagal ku noqon lahayd inaan galbeedkana biyo gelino si aan dowlad meesha ay noqoto meel bariga galbeed magaaladii biyuhu la saa ugu dhex wareega kulay wax qabadooda ay intaas la qorsa kulay waxoogaa anigu waxaan shaqadan soo galay 2010kii waxaana ka bilaabay magaaladan Togwa Jaale shaqadeeda maanta maareeyay aynu ka hadlano aan ku simahan uu ka ahaa anigoo maareeyay ka Ilaahay igu soo gaarsiiyay shaqada haya wakaalada Gabileyna aan shaqa ka soo qabtay hadda oo maanta aan joogayna Arabsiyo maanta leega soo bedelay halkii originalkaygi hore Ilaahay waxaan ka barayaa sidii markii hore u shaqeeyay si ka fiican u shaqeyn doono khibradii markii hore igu yaray aan laba khibradood ay leeyihiin aan maanta sito runtii wakaalada aan anigu madaxda ka ahaa ee degmada Arabsiyo runtii waa wakaalad soo kabcaysay bay ahayd wakaalad meel taagan bay ahayd wakaaladaasi meel baan ugu imiday oo aan ka wakaalada waxaan ugu imiday iyadoo dakhligaygu uu 50% yahay maanta Ilaahay mahadi weeyi madaxdii wakaalada Arabsiyo waa joogan 100% ayaan ka dhigay dakhligayga waan kordhiyay shaqaalahaygu si sharaf leh oo karaamo leh ayaan uga imiday maanta runtii iska shaqadiisu yartahay baan ku hagaagay cusub baa horta anaga noo kacay oo naloo qalabeeyay solarna loo saaray taangi waa Muuse Xuseen Xasan Som News TV degmada Togwa Jaale ee gobolka Gabiley.